marka laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaab alkaafka quraanka ilaahay kaga waramaya ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u sameeyeen ha ahaado inay kala fuqeen iyo bariga hore inay isku dhagsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu soo da'o iyo daruuraha iyo noocyadka kala leeyeen yani quraanku wuxuu ka waramayaa daruuraha iyo noocyadkiisa iyo qaabka roobku uu kala deeyo kala nooca daruurta rukaamiga iyo tagayru rukaamiga daruuraha barafka wata iyo kuwan barafka wadan hilaaca kuwa leh iyo kuwan hilaaca wadan inta quraanku uu ka waramaya laakiin bini aadamku goormu ogaaday wuxuu ogaaday waagii la soo saaray transistorska yani qoladan electronics transistorska yarara isticmaalaan transistorskana waxyaabaha faa'iideeyeen marka technology degdega waxa kamid aha in raadaradan waaweyn la samayn karo raadaradan waaweyn markii la samayn karay waxa suurta gashay waxa cirka maraya ama hawadan sare maraya in maxay la arki karo more practical in la daawan karo bal waxan sidii uu foom garoobayo ama saddeed duulimaadkan iyo diyaaradahan xagga sare hawada sare qabanaya waxay yiraahdaan dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyay ilaa diyaaradii dagaalka labaad duniduna halkan dhow bay carari jirtay meel fog may tagi jirin halkan bay ka bararafleen jirtay intii ka dambeysay 1948 ayaa transistorskan markii la helay waxa kan waxa suurtoobay in la sameyn karo raadaradan waaweyn waxa suurtoobay diyaaradahan dheereeya waxa kale inay soo kacaan waxaasi waxay abuureen in la arki karo daruurtan iyo siday u samaysato ilaa ay ka noqotay nusuusta quraanka siday u sheegaysay nusuusta quraanka siday u sifaynayso ولذلك waxaynu oran karnaa mas'aladani waa al-mu'jiza al-ilmiyya fi al-Qur'an aw al-i'jaz al-ilmi fi al-Qur'an waa fan runtii casriga kan aad loo daraaseeyay oo daraasaadkiisu alfaada xadiiska markaad aragto ama alfaada quraanka lafdi baad arkaysaa nin caalimi oo cilmi dhan kaga waramayo shalaan akhrinaya lafdul jinaaba janaabada maxaa la yiraahdaa looga maydho nin caalim muslima oo ku takhasusay bi'ada iyo talawuskeeda oo ka waramaya qofku markuu jinaaboobo waxa ku dhaca oo inay maydhashadu laab tahay hadii kale inaan nadaafadaas iimanaynin ka waramaya yani taxta ay shacra nabigu sooma tilmaamin tin kasta hoostiisa janaaba ku jirtay in qofku meel kasta biyaha gaarsiyo ka maydho scientifically buu cadeynaya shacra kasta hoosteeda in janaaba joogto yani marka aad tatabuucdo waxyaabahan daraasaadkan cilmiga xadiiska la tilmaamayo maalin dhaweyd baan yana waxaan akhrinayay basarka iyo jinsiga cilaaqada ka dhaxaysa iyo qadul basarku inta uu faa'iideeyo ama se daawashada waxaan sexiska la daawada inta ay wax qaribto ka waramayeen in caalimo muslim idan nusuusta quraanka marka aad eegtay nusuusta xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayka ka sugnaatay waxaad arkaysaa adilla aad u tiro badan oo runtii aan oran karo waa adillo kordhinaysa iimaanka ilaan iimaanku yaziid oo yanqus iimaanku waa daciifa waa kora wuu koraya bil adilla buu ku koraya bitaaca labadaba بالأدلة وكوكرة مسألة هل دليله هيستاه داد بقول دليله هشوا سجناشيه ذو كاغسي بدنانا يا سيدي يمركي هرك واهي إذن بالأدلة إلهي سبحانه وتعالى يدين تسوى حد دليله مخلوقات كالله أبورونا دراسة دوده أي مخلوق للدراسية وكون كان يالا ودليل كتوسين يا محي وحدانية الله سبحانه وتعالى إلهي كلمة مديس إذن عقيدة قفكوا الراسخ يساوي سي بطاعنا وكل راسخ يساه waxaan jeclahay inaan iska soo koobo waxaan leenahay mas'alada tani waa mas'ala runtii daraaso iyo baxthi badan u baahan laakiin aynu ku koobayno leenahay marnaba suurtagal maaha inay iskhilaafaan xaqiiqa cilmiya oo xaqiiqa ah oo aan ahayn theory iyo nadariyaat iyo wax la filayo iyo kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi yani wuxuu bay ku xidhantahay hadaad aragto iyagoo si uu isu khilaafsan
inta ugu badan leh ama nadariyadan sayniska aan sax ahayn ama ayada sidan aad u tafsiiraysan sax ahayn ama si aqoonta basharka aan wali meeshii gaadhin mesela ilmuhu labiya dhadiku noqonayo maxaa sababa saynisku in badan buu waday kolba waxba la sheegi jiray bariye hore sixirada mar baa la oran jiray haddaad waxaa samayso markaad intaa samayso haddaad islaantaada u tagto inamay dhalaysaa waa uun aqoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday hadday islaantu waxaan cunto ilmay dhalaysaa hadduu ninku waxaan cuno ilmuu dhalaya waa la soo waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yidhaahdaan bes islaantu shaqaba kuma leh kromsomiskeedu waa egs shaqo kuma leh waa uun ninka mima indaafiqa ninka uunba dakarka iyo unsuuba ka yimaada ninka oo keliya ayaa ah egs an y dabeetana labada tan aayadka qur-aani way sheegayaan ninka kan min maniyin yumna inuu ilaahay ka abuuro maxay adakara walunha laakiin axaadiista nebiga waxay kaloo sheegayaan haweenka maageedu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inuu unha noqonayo ninka maagiisu hadday culuwi ama sabqi sameeyaanna inay maxay dakar noqonayo mas'aladaasi saynisku horuu fahmi kari waayo biyahan kuwan hadday kor noqdaan iyo kuwan hadday kor noqdaan war egas iyo waygaba ninkaas sida bay yidhahdeen gabadho egas unbay sidaa therefore gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun haddii egaskiisu la kulmo iyo haddii waygiisu la kulmo kromsoomka ninku maadaama uu isagu yani asliyan unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa 46 kromsoom hal unugoo qofka bini aadamkaa ku jira ayuunbaa 23 waa unuga taranta unuga tarantee gabadhu waa 23 unuga tarantee ninkuna waa 23 labadaas 23aad baa markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 46 unuga ragga ee taranta ayaa markaa wuxuu isugu jiraa mid 23 dhadiga iyo mid 23 laba ah haweenayda keedu waa 23 dhadigoo qura bay leeyihiin laakiin 23 ka dhadiga haweenaydu hadday 23 kii dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa hadday 23 kii laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saa daraaddeed bay yidhahdeen gabadhu mar kasta dhadiguunba ka soo socda saa daraaddeed ma shaqaba kuma leh dhowaan wakhti aad u dhow ayaa waxaa la ogaaday mas'alo dambe oo madaxeeda mijo u rogtay waxaa la ogaaday beedka haweenku dowladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooca waxay kaloo ogaadeen manida ninku spamiska agaska iyo kuwa waayga inay qaarna positive iyo qaarna negative yihiin islaanta beedkeedoo negative ah xaaladuu joogo haddii maxaa aqbali karaa hadduu negative matalan yahay negative iyo positive unbay soo jiitaa hadduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeedoo negative hadduu ninka labkaa kiisa labuu negative yahay maxaa dhacaya weeraysaa chance male uu ku laboobo ee ilma dhalanaya waa inuu noqdaa uun kan kale ee positive-ka inuu la kulmo hadduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya kii positive-kaa bay yeeraysaa dee soo maaha two positive ismiye kulmaan magnetismka markaa dhigan jirteen muxuu ahaan jiray wixii isu eegina waa kala yaacaan wixii kala gedisanina waa isu soo jiitaan soo ma ahayn waxaynu idhi islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba wuu noqon karaa labka iyo dhadigan uu odaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chanceska inuu ka negativekii la kulmo kan waxay ku xidhan tahay inaanu kani ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay rebellion baa dhacaya markaa waxay sawireen markaa maridii ninka oo maalan intay kani negative noqotay kuwiisii negative-ka ahayd dib u soo yaacayaan inay baadka qabtaan xaggiisa daayay kuwii positive-ka qura ay ku sii socdaan idan chaneskii labnimadu uu lumaya cagsiga chaneskii dhadignimadu uu lumaya markay neutralka tahayna labadaba waa aqbalayaa bay yidhahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan karaa idan hadda wakhti aad u dhow maaha wakhti fogba scientifically wakhti aad u dhow
oo researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantahay bale waxay yidhahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negative tay 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay yidhahdaan waa ahayna xataa maalmihii bay kuwa yihiin 70gaasi xagee ku dhacayaan waa masale kale xagee ku dhacayaan waa masale kale laakiin waxay leeyihiin 70 to 80 days ay negative tay that means 70 to 80 days ayaa chanceska ugu badan uu yahay inuu noqdo ilmuhu lab 70 to 80 days na chanceska ugu badan ilmuhu wuxuu noqonayaa maxay dhadig inta kalena waa chances isleeg bay leeyihiin dhadig iyo labku noqonayo waxyaabo kale oo badan oo xukuumada waa jiraan عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxay leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmiga waxay tahay wax kasta oo taxta almushaahada yimaado intii ugu dambeysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qur-aanka iyo waxyigu qur-aanka iyo sunnada nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sugaysa waxaan ku soo koobaya markaa mawduuca kani wuxuun baan isku dayay cumuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amhiladiisu baahan yihiin wakhti badan iyo hadda in mawduuc gaara laga warramo waayo mawduuc aljaniin oo qura laga yaabi lahaa 2 saacadood 3 saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo ururino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo ururino sharaxno waxaa laga yaabaa roobka iyo siduu u da'o qura nusuusta quraan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientific proofka soo aroorayna inaan soo ururino isla muxaadaro yani ay mas'ala laga warramo waxa laga yaabaa cilmiyan hadii la isla uga warramo inay u baahan tahay maxay saacad laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo inuu yahay nooc min al-i'jaaz maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir